madaxweynaha waxaa meesha dhul waxaa ka siiyey 100 lagu ruftay 200 oo badda ka kaco oo jaayga taga oo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud waa abaalgudkiisa maadaama dhulkii uu xoreeyay 15 sano ee nimanka shabaabka uu naga xoreeyay oo na dul saarnay ma xasan sheekh maxamuud dhul siinaysaa ha xasan hadee waxaa la yiraahdaa waa il iyo aragti dhul iyo asagaba anigu maalintii la magacaabo 3 sano sanadkan 4 yaa ilaa hadda meeshii lagu diray xaaka qabatay xaana qaban wax ila xisaabtamatay marka dawladda maxay idin qabatay dawladda waxay qabatay in xasan sheekh hadda wuxuu qabtay inuu meeshii 15 sano nimanka shabaab haysteen inuu xoreeyay saaki oo madaxweynihii uu soo nabad qabo soo booqanayo kulan wacan daawadayaal ciid wanaagsan dhammaantiinba meel walba dunida aad ka joogtaan waxaa stuudiyaha telefishinka danan nagula sugan guddoomiyaha deegaanka jilib marka siciid cabdiqaadir maxaad waa nin ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kalena dowladda dhexe ee soomaaliya sidaad la wada socotaan muddooyinkan waxaa ishaya dhinaca siyaasadda markii loo eego dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waa tii uu xiriirka u jaray dowladda federaalka isagoo ku eedeeyey qodobo fara badan xataa uu yidhi dowladda dhexe iyo shabaab waa isku milmeen haddaba maadaama siciid cabdiqaadir maxaad caartanyare uu ka mid yahay maamulka koonfur galbeed guddoomiyaha jilib markana uu yahay sidee buu u arkaa arrintan koonfur galbeed ay ku dhaqaaqday soo dhawow guddoomiye kadibna arrintan koonfur galbeed ay samaysay xiriir u jaristaan ku hormaraynaa cabdicasiis asagoo jooga xaramka ayuu xiriirka u jaray dowladda dhexe ee soomaaliya aragtidaada soo dhawow waa madaxweynahaagi faarax idaacaddanan iyo adigoo waa ku dhowahay oo xiriirka waddanka horta dowladda federaalka ka taliso xiriir u jarisaasna wax oo maamulada dhan iskaga hadaaqaan waaye wax shaqeynayana maaha soomaalina cidda hadda kala goynayso wax dhici kara maaha waaye marka waa cabdicasiis waxaa umaleha waa iska riyoona umaleha haye sabab laakiin hadda maamulkan waa udub dhexaadkii dowladda dhexe waaye cabdicasiis laftagareen inuu xasan sheekh maxamuud uu ka tago waxaa loo arkay dhabarjab weyn xasan naftirkiisa muuqaal ahaantiisa waa laga dheehan karaa culayska soo wajahay markii koonfur galbeed ay xiriirka u jireen faaraxow koonfur galbeed mar hore waqtigeeda dhamaa haye marka asagaaba dhiid haysanaba horta xoo ka baxaba waaye hadda wuxuu matalaba ma jiraan waa garta waa nin mucaarad oo meel iska fadhiyo koonfur galbeed madaxweyne hadda kadib in loo sameeyo dowladda oo doorasho qof cad loogu sameeyo mar hadda koonfur galbeed madaxweyne ma laha ma adigoo guddoomiyihii jilib marka ah koonfur galbeed ka tirsan cabdicasiisku soo magacaabay maaba saas u hadlaya hadda way soo magacaabay anigu meeshu isoo magacaabay gurigiisa maaha haye waa meel aabbahay 30 sano ka talihayay aha waa deegaankeygii waa gurigeygii waa i magacaabay maalintuu magacaabay ugu dambeysay haye haddii dowladda dhexe aa meeshii ii xoreysay aha dowladdii federaalka meeshii xoreysay meeshii waa nabad 7 sano fadhiyey hal koob biyo kuma sheegto mana xoreynin wax oo ka qabtana mala gobolkaas gobolka shabeellaha hoose oo dhan lugooyo ku yahay dadka gobolka shabeellaha hoose degan waa inay tashtaanba hadda fursada jirto dowladda federaalka inay la midoobaan dowladdan wax u tarayso dadkaasna aamiday karto waddankaana maamul goboleedyadan kulligoodniba madaxweyne sheeganaya in laga titiraa qabaabaan in federaalkan laga baxo oo dowlad dhexe xoog la sameeyo waaye maamul goboleedyada hadda dowladda u diiwaan gashanoo maamul goboleedyada rasmiga ah waa 5 maamul goboleed laba horey ugu soo horjeedeen hadda cabdicasiisaa ku biiray laba xasan sheekh ilma adeeradiisaa ku soo haray maamul kaloo waxaa jira lagu soo kordhiyey oo waqooyi bari la yiraahdo kaasi xisaabta kuma jiro 5 maamul goboleed haddiiba 3 ay dowladdii ka soo horjeedo culayskaas bal ka waran miisaanka uu leeyahay horta wax culays hadda oo dowladda ay haysto ma jiro haye waxaa ka dareemaysaa intii maamul goboleed ah hadda axmedoobe asaaba wax doortay iyo wax dooranana ma kala naqaan waa xildhibaanadii federaalka meesha ku xirnay waa boobis caadi ahayd cid madaxweyne u aqoonsan ma laha adduun wala dowladda dhexe wax aqoonsan ma jiraan haye
labadan kale ii sheegtana waa Puntland asana waa nin tuulada sixirto xoog ku haysta waa dadka atay maraban maamulkan oo waqooyi galbeedna maamul jira waaye oo dawladda aqoonsan tahay haddana maamulada oo dawladda taageersan oo ka mid yahay haye xasan sheekh maxamuud hadda ma la dhihi karaa dawlad ma aha maamul goboleed xataa waa ka hooseeyaa maadaama laba ilma adeeradiisa ay kusoo hareen asagana xamar ba aan dhaafi karin inay afgoydan halkan u jirto 30 kilomitir xataa dawladda aan awoodeeda gaarsiisanayn ma la dhihi karaa madaxweyne xaafad amba madaxweyne gobolka banaadir farax riyadli sax hadda isku sheegno xasan afgooy ma tagi kari waxaas war waay haye xoreyntii waxay ka socotaa kunya u soo dhawada waa ilaa de qoryooley bisa dhimanaa maleha shabeelle hoose inta kale waa xor haye ciidamada military oo xasan xukuma joogan nimanka maamulada ay sheegaysa taas markii koonfur galbeed iyo heshiiska la ahayd hadda hawshu way isbedeshay moogta wax heshiis ma jira dawladda federaalka wadanka iyada mas'uulka waaye waa dastuurkooda buu qoray xuduudiyaha iyo wadanka inay iyada mas'uulka tahay amnigiisa waaye markii wadanka xoreyntiisa waa socota afkooyina dawladda haysato koonfur galbeed hadda maqaar saar ahaan ku joogtaa magacaasi ku joogtaa oo shabeellada hoose inuu ka tirsan yahay annagana hadda shabeellada hoose daana haysa cadaan laga bilaabo koonfur galbeed inaan ka tirsanayna aaminsana waxa sabab ah koonfur galbeed 7 sano jiray halkoo biyaan uma sheegto wax oo nagu sheegta aba wax maamul wanaagsan ma laha anigu maalintii la magacaabo 3 sano sanadkan 4 yaa ilaa hadda meeshii lagu diray xaaka qabatay xaana qaban wax ila xisaabtamatay marka dawladda maxay idin qabatay dawladda waxay qabatay in xasan sheekh hadda wuxuu qabtay inuu meeshii 15 sano nimanka shabaab haysteen inuu xoreeyay saaki oo madaxweynihii soo nabad qabo soo booqanayo xeebta ku soo dukaday dhulkii waa xor dhowey iyo xeebba waa xor gobolka shabeelle hoose waxa xor wax yara ka jira oo kuyi xasan iyo kooxdan la yiraahdo dama jadiid ee filada fadhiya shabeellaha hoose in ay shabaab ka saaraan ujeedooyin kale ay kala haayeen dan shacab iyo dan Soomaali weyn uma soconina shabeellaha hoose in la qaato awgeed ayaa shabaab loo eriyeenaya ma la isdhihi karaa shabeellaha hoose cid qaada karta male ana ka matalna waaye dhul oo dadkiisa joogana cid qaada karta male xasan warkaas war macaarad waaye xasan ni madaxweyne waaye wadankana madaxweyne u yahay gobol gooni oo duulaan ku yahay ma jirto dawladda federaalka wadanka iyada u talisa waxaan u galaynaa arrintan koonfur galbeed degmada Baraawe shalay haramcada laga dajiyay adiga guddoomiyenimada markii laga soo tago khibrad baad u leedahay arrimaha ciidanka Baraawe ciidana laga dajiyay oo haramcada ciida koonfur galbeed joogay dawladda federaalka sumcad ahaan ma u fiican tahay deegaan nabdoon oo wax dhibaato aan ka jirin in colaad ay ka horiso xamar intay ciida ka daabusho ay Baraawe geyso dagaal meesha laga abaabulo arrintaas bal ka war faaraxo saa ku sheegay warka dhowr mar ku soo celiyay wadanka dawladda mas'uulka dawlad jilacsan wadanka mas'uulka mana qarto magaalada Baraawe hadda dawladda waa la wareegtay ciidamadii wax yar gees inay uga baxeen la sheegaa oo koonfur galbeed wax yar oo joogay waliba waxa uu istaxeeynaa inay hubkii iska dhigaan dadkooda dhinac ka raacaan ay dawladdaas ay la midoobaan Cabdicasiis wax oo wadankan oo u haay oo dib ahayn malaha siyaasiyiinta koonfur galbeed ka dhashay ma tagi karaan baydhabo waa nin meel u xirantay magafa haye marka waxa kale uga faa'iideysan lahaay maadaama deegaankii jil marka gudoomiyihiisa ahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama oo madaxweyne hore oo madaxweynihii ka horeeyay guri looga dhisay deegaanka ceel jaalle madaxweyne xasan jil marko anaga dad dawladeed baan nahay ayaa xukumi jiray siyaad bare 5 mar oo imaaday markana ma tegin aabay 30 sano meesha gudoomiyaha waaye madaxweynaha waxa meesha dhul waxa ka siiyay 100 lagu ruftay 200 oo badda ka kaco oo jaayga taga oo xasan sheekh maxamuud waa abaal gudkiisa maadaama dhulkii uu xoreeyay 15 sano ee nimanka shabaabka oo naga xoreeyay oo na dul saarnay ma xasan sheekh maxamuud dhul siinaysa xasan hadda waxa la yiraahdaa waa ilaa aragtay dhul iyo asagaba marka waxa soo iska barbagaan madaxweynaha lagu barbagaamahay dhulkaas hadii ahaan u siinay dadka deegaanka ama talay kulli dhulkaas inuu madaxweynaha abad isto
aba madaxtooye ka dhigto aba guri ka dhigto asaa bila sharaf ay u tahay maxaa dan oo ku jira oo idin qabtay oo dhul ah ku siisay marka awal waxaa ay nabadgelyada haye 16 sano shabaabkina dul saarnay Ha. ninka naga dul qaaday saaka ani xamar inta ka baxo kalgii anoo hal askari wata jilib ka soo baxay asa xamar imaada haye xorriyadda wax kasta la heli karin marka Waay. marka dhulkaana saasaa ku siiyey madaxweynaha maanta laga bilaabo waa milkiitis waay waa filaya xasan sheekh maxamuud inkastoo dee iska mashquulsan yahay dhulkan la siiyey inuu gaari doono oo dadka asaga la taliyaashiisa iyo asxaabta la shaqaysa markay arkaanna ay la wadaagi doonaan cabdicasiise lafta gareen maalinta sabtida wuxuu ku dhawaaqi doonaa guddiga doorashada ee koonfur galbeed soo xulista baarlamaanka kadibna waxaa la mudiyeyn doonaa doorashada madaxweynaha arrintaas bal ka war horta annaga gobolka shabeellada hoose haddaan ahay dowladda oo cabdicasiis matalaad dhaba maba ku haysan marka hore haye dadoo asaga isku qorqorto oo shaqaale gurigiis inay yihiin inay ciddan shabeellada hoose ay matalaan oo la kala fahmi la'yahay oo ebelba soo qorqoro jiray hadda kadibna qof oo soo qoran karo aa ka yeelayna malaha dowladda federaalka hadda wax ku darsanayno anka ku darsanayno xildhibaanada federaalkana dad wax galo oo dowladda wax ka gooyo aa geysanayna sanadkan hadduu ilaah yidhaha xalay waxaa is casilay wasiiri dowlayaashii iyo wasiir ku-xigeenadii ugu badnaa abid oo xukuumaddan wasiirka koowaad uu ka yahay ninkay soomaalida u bixisay xamse baraf xamse cabdi bare wiilka xasan sheekh maxamuud way is casileen waa reer koonfur galbeed dhammaantood xildhibaanayna u badan yihiin malaha 10 way ku dhow yihiin weli wasiir buuxi isma casilin laakiin wasiiri dowlayaashi iyo wasiir ku-xigeenadii is casilay wasiir ku-xigeenadaas is casilay midkood adigaad isku heeb tihiin isku xaafid tihiin isku dheri aad tihiin isku siyaasad aad tihiin waa nidaad ilmo adeer tihiin is casilaadiisa seed baad u aragtaa xuseen cali xaaji wasiir ku-xigeenkii wasaaradda isbeddelka cimilada horta xuseen iscasilaadiisa waxaa u arkaa nin hadda xildhibaannimo bursanay haye lafta garan xildhibaan oo kusoo siiyaa soo tugtugta aba meel oo fadhiisatana waxaas xildhibaan darajo leh maaha waaye war dadkaada u imaaw doorasho qof iyo codaa gobolka laga qabanaa dhinacaada ka gal waxaa heshid qaado wax lafta garan kuusoo dhadhoobana inta ka shaqey maayaan wax aa ku qabanaysidna ma laha sanadkaanne ciddii oo biimaal wax la dul saaray ay yeelaysa male idaa masiirkeeda idaa u madax banaan ayaan dhibayd shir weyn ay qabsadeen waa shirka kale hadday u balansan yihiin qofkay rabaan iyagaa dooranaya hadda dagaala sida muuqato laysu midi afeysanayaa cabdicasiis lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud xasan amba uu hadduusan guddoomiye ahayna geed fadhi u yahay xisbi la yiraahdo damul jadiid waa kooxda xukunta filla soomaaliya kooxdaas ma jecla soomaalida siiba reer koonfur galbeed uma jecla haddana duulaan ay ku yihiin koonfur galbeed haddii uu dagaal dhaco yay faa'iido uga jirtaa ma dowladda dhexe mase maamulka koonfur galbeed horta ummadda soomaaliyeed xilli adagaa lagu jiro abaaro anigu inuu dagaal dhaco ma qabo haye waxaa qabaa cabdicasiis 7 sano dadkan dul saarnay waxna uma qaban inuu meesha iskaga tago waaye fakarkeyga dowladda oo federaalkana waddanka iidaa mas-uulka ah wixii carqalad ku ah inay ka safeyso iidaa mas-uuliyaddii u dhaarata waay xasan sheekh maxamuud aad baad u taageersan tahay dhul baaba siisayba xasan 2 jeer uu madaxweyne soo noqday labadaa jeer oo madaxweynaha soo noqday labadaba lama mahadinin weliba reer shabeellaha hoose ma mahadinin teeramkii ka horreeyey adiga reer shabeellaha hoosaa tahay haddana dhulaad siisay xasan hoggaan xumaa lagu eedeeyaa talo xumidiisa iyo hoggaan xumidiisa ayay soomaali ku kala tagtay hadda maanta waa keligiisa filla soomaaliya xataa hiraabka uu ka dhashay wax la jooga ma leh xasan siifigiisa soo dhaawac weyn kuma noqonayso arrintan in soomaali gacantiisa ay ku burburto farax su-aashaada waa sax daa su-aal ku weydiiyey nimankan hadda oo hotel jasiira iyo meelahan fadhiyaan oo madaxnimada raadinaya wax xasan dhaama ma ku aragtay raggaas waa rag musharaxiina laakiin su-aashan ku weydiiyey waxay tahay xasan siifigiisu ma dhaawacayaa in soomaali talaxumidiisa ay ku burburto
xasan meel cidluu fadhiya marka sida xaqiiqada loo hadlo cidlo joogto ma leh reerka asaga ka dhashay xataa waa ka kala tageen marka xasan maadaama 2 jeer madaxweyne noqday inta arrintan aan dhicin xoogaa siifi qurxoon baa loo arki jiray hadda laakiin siifigiisii arrintan inay dhaawacayso ma kuu muuqataa meeshaan haddii aan carabka ku ballaariyo daarood lama hayo xaqiiqadaa ka hadlaynaa digil iyo mirifle shalay ugu dambeeyey waa ka tageen beesha dareeda adiga aa ka dhalatay mar hore ay ka kala tageen somalilan awalba lama hayni maxaa la yidhaahdaa yaa la jooga marka hadda xasan marka bal arrintan falanqay bal in yar ka hadal niyo adigu faaraxo wax kuu muuqdaan iyo ma muuqdaan dadka Soomaaliyeed kulligooda dad ay soo xusheen baarlamaanka dhigteena u joogo waaya wasiirra u joogo saakeena dawladda sideeda u dhisantay waxaan waa tagaleeda anigu waa family ah haye nimanka maamul goboleedyadana marka hore laga badbadiyo in la yiraahdo gudoomiye gobol waa la yiraahdo ku fiicneed haye marka hore munaasabada lahayn la siiyay wadankan waa warka marka kuwa ku sheegay wadankan federalismka waa dhiba iyadoo dhibaya hadda oo sidii la isku doortay oo wali dadkii Soomaaliyeed isku jijiidis ee tahay baarlamaankii nin kasta daarood ha ahaado dir ha ahaado hawiyaha ha ahaado raxweynaha ha ahaado baarlamaankii dadkii sidooda u joogaan baarlamaanka la tegay ma jiro waaya wasiiradii sidooda u joogaan ra'iisul wasaare xamsane waa ra'iisul wasaare Soomaaliya uu fiicnaayo soo maray waaya nin ahludiin ah oo qadiyada Soomaaliya qadiyada Falastiin ka hadla kuwa kale kuma dhacaan hata inay ka hadlaan waaya diinta islaamka kama hadlaan arrinta Falastiin markuu ka hadlay laakiin dhibaato weyn aan soo gaartayo watan hadda yahuudda ay soo degtay Somaliland ay tiri Somaliland waan aqoonsaday hadalka xamse uu jeediyay liajligeed ayay Israa'iil u sameysay arrinta Somaliland ka sii soco ma Somaliland mana degi karto mana degayso haye xasan ma dhici karo yahuud anaga noo soo degi karto iyada hadda waa gabaabsi xalay hadda ra'iisul wasaaraheedu waa baqtiga leeyahay waaya marka taas iyada gabaabsiya waa taas meesha uga baxo marka wadankan meel fiican u socdaa madaxweyne xasan meel fiican u geeyay wadankan hadda anigu waxa dhihi lahaa 5 sano dhimanaha lagu daro waxa qofa mucaarad lahayn dadba ma ahan oo dawladdu waa laasim inay mucaarad leedahay mucaaradka ana iska jajaqayaan anigu waxa qaba xasan dawladdan hadda meel fiican u geeyay maadaama deentii laga cafiyay hubkii la cunqabataynka laga qaaday bari Afrika la galay dawladda waxay qabatay dawlad qabatayna ma jirto waay markii saxda laga hadlo lafta gareen khudbad buu jeediyay 2 maalin ka hor khudbadiisu way dheeraado 26 daqiiqo iyo dhowr sakiin bay ahayd qodobada uu ka hadlay waxa kamid ahaa arrin aad u culus wuxuu yiri laga bilaabo xasan sheekh maxamuud iyo kooxdan dami jadiidka ah ee xukuma filla Soomaaliya waa shabaab warka markii la soo koobo ayaga iyo shabaab isku milmay isku mid bay noqdeen sidee baad u aragtaa xasan madaxweyne xasan dadka mucaaradka ku ee hoteeladan ay joogaan oo koray bari u socdaan haye asaga qofku mucaarada bay dhawaad tagi waay haye shabaabkan waxa lagu yaqaanaa dictatornimo iyo dad dilis iyo meeshii joogaan qof ay ka heshiis leeyahay inuu tagi karo labadood shabaab asaa u dhow haye ma madaxweynaha saas leedahay oo ku soo magacaabay magacaabis warqad hal mar soo baxday waay laakiin hadduu qaldan yahay qaladkiisa waa loo sheegay ma ka cabsi qabtaa in xilka laga qaado xilkan anigu deegaanka waa ku dhashay federaalkan ka tirsanahay haddoo iga qaadatay guriga tagaa waa deganahay gudoomiye qaldan haddoo keen dabada haranta ka geliya oo la hubo haye aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha deegaanka Jilib markaas Ciid Cabdiqaadir Maxaad Cartay Yare oo aynu ka wareysanaynay arrintan soo cusboonaatay dhinaca Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waraysi ka lamid ah intaynu kooda kulmayno dhamaanteed isku duuban cid wanaagsan nabadgelyo soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba u kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya